بسم الله. qoraalka far Soomaaliga yani qofka ugu horeeya hadda taariikh ahaan lahaayo wuxuu yahay nin la yiraahdo Kirk 1889 meelahaas ayaa wuxuu isku dayay wuxuu arkay dad hortiisa ay baareen af Soomaaliga marka af Soomaaliga inuu naxwo fiican leeyahay oo af mugle uu yahay wuxuu yiri afkan wuxuu mudan yahay in far loo yeelo inkaas ugu horeeyay isku dayay in far carbeed uu ku qoro af Soomaaliga marka xiga maxaan ku yiraahdaa wadaadada jiray oo iyagana ay isku dayeen in maartay far carbeedka ay ku qoraan af Soomaaliga Sheekh Uweys iyo wax la mid ah markii qarnigan soo dhaafnay 1920 waxaa jiray Yusuf Kennedy ayaa isku dayay isagana far inuu u sameeyo far la yiraahdo maartay waxa loo bixiyay Cismaanka ninka soo saaray walow markii dambe qabiil dadka ay ka dhigeen laakiin ninka soo saaray waa far oo Latin aan ahayn Carabi aan ahayn sida fartan Amxaariga wax u dhow laakiin ka duwan ayuu soo saaray far kale isaga oday nin Gadabiirsi isagana far Gadabiirsi la yiraahdo waqtiyaas oo kale soo saaray waxay soo socotaba aadi bantameeyadii markii la yimid ayaa dad badan baraarugay maartay oo loo baahday afkii in far loo yeelo marka ilaa 50 ilaa 60 adii waxa la sameeyay 17 far oo Soomaali ku saabsan oo nin walba isku dayay inuu sameeyo alifba oo maartay Soomaaliyeed farahaas oo saddex qayb u kala baxayaan kuwa Carabi iyo Latin bishaqo aan ku lahayn sida Cismaaniyadaas oo kale ka dara iyo kuwa kale ka dariya la yiraahdo oo far gooni ah iyo maxaan ku yiraahdaa kuwa ay ku qoreen far carbeed ay ku qoreen kuwana waxay ku qoreen farta Latinka ay ku qoreen saddex koox ay ahaayeen waxaan af Carabi lagu qoraya yani farta Carabiga loo adeegsanaa Soomaali loo adeegsanaa kuwana Latin marka 60kii markii la gaaray ayaa dawladii waxay dareentay markaa jirtay in loo baahan yahay ilaa waxa la adeegsan jiray inta ka hor markii gumeysiga uu yimid dhinaca waqooyi af Ingiriisi ay adeegsan jireen maamul iyo waxbarasho dhinaca koonfureedna Talyaani ayaa la adeegsanay af Carbeedka luqadii labaad ah laakiin adeegga iyo waxbarashada af Talyaani wax lagu baranayo intaan la qorin farta af Soomaaliga waxa lagu gudbin jiray maartay ninkii ku qoro inta badan waxay ahayd mid maartay shafawi oral ay ahayd marka suugaanta waxay ahayd oral tradition wax la yiraahdo waa la soo gudbin jiray maartay si tiraab ahaan lama qori jirin dadka qaarkood waxay u qorayeen maartay far carbeed qaar ku qorayeen qaar fartan Latinka ku qorayeen laakiin ma badneen qoraal ahaan sidii la rabina yani farahaas looguma gudbin karin gabayadii iyo maansada looguma gudbin karin waa adkaanaysa akhriskii ma garatay marka baahiya jirtay baahida taas iyadoo iyo haddana markii la isku darsamay waqooyi koonfur ay isku darsameen oo laba maamulo waxay kala lahayn xagga Ingiriisi iyo intana Talyaani waxbarashadii hadii la rabo in la mideeyo wararka kale maamulka hadii la rabo in la mideeyo qoladaas Ingiriisi ay wax walba ku qorta intana Talyaani marka meeshaan caasimadii waxa dhici jirtay is-afgarawa waxa soo baxaya dekreetooyin ka soo baxay baarlamaanka ama madaxda ka soo baxaya sharaac Talyaani ay ku qorayeen nimanka Ingiriis ma yaqaaneen waqooyi markii wareegtadaas waqooyi loo diro ma yaqaanaan meel iskaga tuurayaan marka sidaada waxay ahaayeen laba aan isku xirneen oo kale ahaayeen far darteed farta maqnaasheeda baahi weyn loo qabay marka guddiga la magacaabay
oo maaragtay muuse galaal uu madax ka yahay yaasiin cusmaan iyo shire jaamac ka dare nimanka allah u naxariista marka nimankii waxay isku dayeen maaragtay inay far la isku raaco inta aan la isku raacin waxay samaysteen waxyaabo la isku raaci kara criteria wax la yiraahdo ama shuruudo oo halbeeg ah maxaa noo ah farta oo inay fududaataa waa inay saa ahaataa waa inay saa ahaataa iyadoo halbeegga lahaay ayaa 17kii farood 18 oo shuruuda loo sameeyay waxaa u dhawaaday buuxiyay farta laatiinka ayaa u dhawaaday shuruudihii ay degsadeen ma garatay marka dadweynihii marka ay maqleen dibadda in la soo wado far laatiin dadku marka waxay u maleeyeen waxay u qaateen in laatiina la diina ay diin la waaye marka waxaa nala soo wadaa far gaala nala soo in la gaalay marka 60kii dadkan aqoon badan lama lahayn waxaa la isku khalday far iyo diin